ma aragta dhalinyar fara badan oo jaamacad ka soo qalin jabiyay ka calaacalay inay shaqo la'aan hayso qofkaas soddon jirka ee ka calaacalay shaqo la'aan inay hayso balwad bartay iyo soddon jirka hormuud maamula maxay tahay farqiga u dhaxeeya waa tan qofku qaabku u program gareeyo waxaynu joognaa waqti haddii aan ku idhaahdo war walaalow qofkaas been ayuu kuu sheegayaa ay fududahay inaan anigu adiga mar labaad been kuu sheego oo haddana i rumaysato haddaba haddii aad tahay qof jecel inuu runta maqlo videogan run ayaan kuu sheegi doonaaye fadhiiso oo daawo sababta aan maanta videogan u samaynayno wax kale maahan waxaynu noqonay bulsho la rabo in iimaankeeda la daciifiyo caqliyadeeda iyo sida ay nolosha u arkaysaba sida u xun loo jeediyo dad fara badanna ay dareemayaan welwel iyo walaac saddexda shay ee nolosha ugu muhiimsan waxa weeyaan biyo hawo iyo cunto u fiirso waddankeena cuntada u badan 90% waxay nooga soo gashaa dalka dibadiisa dawooyinka aynu isticmaalnana sidaas leh kartoonka ay dawadu xataa ku jirto ma awoodi karno inaynu akhrino sida aynu isticmaalno iyo waxa laga sameeyay waqti waxaynu joognaa aynan kala garanayn maxaa saxsan iyo maxaa qaldan aniguna waxaan ka mid ahay dadka jecel inay ogaadaan sababta ay shaygan sidan ay u tahay waxaynu isla eegi doonaa saddex shay oo mar far badan aynu aragno sida ay yihiin balse xaqiiqi iyo run waxa ay yihiin aynan kala garanayn kow maskaxdu waa sida computerka oo kale ama adiga wax ku shuban ama waa lagu shuban maxay kula tahay YouTube Snapchat TikTok Instagram in loo sameeyo maalayacni waxaan oo dhan looma sameyn kaliya in adiga anfac ku yeeshaan ama in adiga asxaan lagu sameeyo oo kale dhammaan waxyaalahan ama platformyada waxa loo sameeyay kaliya adduunyo in faa'iido kaliya laga sameeyo dhammaan shirkadahan waxay shaqaaleysiiyaan psychologists-yada ugu khatarsan caalamka kuwaas oo ku takhasusay qaabka maskaxda bini'aadamku ay u shaqaysiiso TikTok marka aad tagto ee hal mar scroll galayso maskaxdu waxay soo diisaa waxa la yiraahdo dopamine ama dareenka farxadda haddana waad scroll gareyn boom dareenka farxadda mar kale haddana dareenka farxadda mar kale boom haddana waxaad arki doontaa adigoo 3 saacadood isticmaalaya teleefankaaga aadan xataa dareemin inaad hal daqiiqo aad daawanaysay mana ogid sababta aad u daawato qof aad ogtahay waxa uu sameynayo in ay ka soo horjeedo diinteena dhaqankeena iyo caqliga soo bariba adiga ayaana ah qofka noloshaada gacanta ku haya maskaxdeena dabiiciyan waxa loo sameeyay inay wax raadiso laakiin sababxumo sidoo kale waxay jeceshahay maskaxdeenu waxa fudud ay istirax ku dareemayso inay mar walba ay samayso adiguna haddaad raadin sababta ay maskaxdaadu sidan u sameynayso ama ay qaabkan u shaqaynaysaa way adkaanaysaa inaad ogaatid sababta aad u aragtid waxaad arkayso waxayna ahayd in maskaxdeena aynu u diyaarino cibaadada rabbi balse waxaynu joognaa waqti ay meel walba ay naga horeeyaan social media telephone radio journal iyo waxaas dhan waxaan u baahanahay inaynu la janqaadno waxa laga yaabaa inaad daawato youtuber fara badan kuwaas oo ku kala hadla luqadooyin kala duwan waxayna soo geliyaan youtuberadooda sida loo sameeyo lacaga qaabka xirfadaha loo barto qaabka adduunyada looga dalxiiso iyo waxayna ku tusaan adduunyooyin ka duwan ama magaalooyin ka duwan meesha aad ku nooshahay kuwaas oo laga tusayo meelaha ugu quruxda badan ee qofkaas uu joogo ma ogsoon tahay dhammaan youtuberadaas waxyaalaha ay ku tusayaan haddii ay tahay YouTube ama haddii ay tahay Instagram ama Snapchat ama TikTok ba dhammaan waxaas oo dhan maskaxdaada waxay ku abuuraan waxa la yiraahdo kalsooni darro xasilooni darro iyo ku qanacsanaan qofku wax uu haystaba dhammaan shayadaas waxay ku abuurayaan maskaxdaada inaad raadisid wax ka maqan xataa laga yaabo in systemka aad ku nooshay aynan fududayn inaad waxa aad samaysid ma aad isku diid haddii ay tahay xirfadba laga yaabo qofkaas inuu u sameeyo si wanaagsan oo uu leeyahay war walaal aniguba maadaama uu sameeyay adiguna waad sameyn kartaa laakiin maskaxdeenu sidaa ma taqaano waxa uga falcelinaysaa qaabka ka jilicsan qaabka adigu u malaynayso oo ah in ay gelinayso maskaxdeenu ama ay u shaqaynayso qaab daciifnimo ah iyo isku kalsoonaan iyo ku qanacsanaanta waxa ay haysato diinteenuna ay farayso qofku wuxuu haysto inuu ku qanco uu ku farxo alxamdulillah oo yiraahdo uu ku shukriyo waxyaalahaas faraha badanna maskaxdeenu iyo shaydaanka iyo nafteenuba way inaga caawinayaan inaynu arki weyno waxyaalahaas oo ay arkaan waxyaalaha qofka kale uu haysto oo kaliya waxa arkaa marar fara badan aniga laftarkaygu marka aan daawanayo youtuberada Soomaaliyeed in dadka daawanaya ay commentiga ku soo qoraan emojiyada ooyinta calaacalka iyo warwarka waxaan ku leeyahay waxay tahay haddii aad warwarto ha warwarin haddii aadan warwarinna waxaad u baahantahay inaad warwarto u dhaxee labadan shay indhahaaga ayaa ku macalina haddii aad ka jawaabtid su'aashan waxaan kuu hubaa inaad nolosha garanaysid wax runta iyo wax beenta su'aashan ka jawaab ka waran wax walba oo aragtid noloshaada
ood u aragtid inay ku yihiin sax haddii ay yihiinba wax maskaxdaada lagu shubay mar hore si ay shayadaas kuula muuqdaan inay run kuula muuqdaan ama inay sax kuula muuqdaan waqtigan aynu joogno ee horteena ay yeelaan telephone TV journal dad qaab kale u fikiray iyo waxyaalahaas oo dhan miyay kula tahay in indhaheenu macallin ay noo noqon karayaan halkaan waxa ka cad waxa laga yaabaa indhaheenu waxay arkayaan inaysan ahaynba wax runa oo yihiin wax u dhow runta oo la yiraahdo xaqiiq waa inaynu barnaano maskaxdeena qaabkaynu isticmaali lahayn haddii ay tahay TV haddii ay tahay telephone haddii ay tahay journal haddii ay tahay qaabka waxbarashada loo baranayo dhammaanba waa inaynu tusnaa qaabka ugu wanaagsan ee ugu waxtarka badan leh ee loo isticmaalo balse haddii ka waran adiga laftarkaagu aadan ka warqabin qaabka aad u arkayso nolosha ee kuula muuqato inay run tahay in ay tahay shay maskaxdaada lagu shubay oo aad u malaynayso inay kuu muuqdaan inay sax yihiin balse ay yihiin waxa la yidhahdo xaqiiq ama mala awaal su-aal ayaan ku weydiinaya ma taqaana inta aynu nolosha nool nahay da-deebaynu nahay da-da ugu fiican ee wax curin karta ama creative ah ma waxay kula tahay marka aynu jirno 25 jir ee maskaxdeenu ay cusub tahay fresh tahay wax walba ay qaadan karayso ayaynu nahay creative ama aynu wax curin karanaa mise waxay kula tahay markaynu 40 gaadhno aynu waaye aragnimo ay noo dhan tahay aynu nolosha waxyaalo fara badan aynu ka aragnay in aynu nahay qof wax curin karaya maxay kula tahay talo jawaabta ma ku siiya dhammaan waxaan ku sheegay waxa weeyaan waa qalad haddaba ka waran haddii aan ku idhaahdo daadu wax ugu curinta fiican leh ama ugu creativesan ama wax soo saari karta waxa weeyaan qofku marka uu jiro 5 jir experiment la sameeyay ayaa lagu qiimeeyay qofku da-deebu ugu curinta fiican yahay marka uu 5 jir dhaafana creative-nimadiisa ama curintiisa ay hoos dhac ku timaada maxay tahay sababtu waxa weeyaan waxa la soo saaray in qofku marka uu 5 dhaafo maxaa u bilaabma ilmuhu markuu 5 dhaafo waxa u bilaabma inuu school tago inuu TV daawado inuu telephone isticmaalo inuu wax maqlo inuu bulshada dhageysto in dadka waaweyn uu hoos fadhiisto dhammaan waxyaalahaasi waxay qofka ay hoos ugu dhigaan ama da-da waxay hoos ugu dhigaan in wax curintiisu ay hoosaysiiso waxaan ku daawadsiinayaa video aad iga cajiib geliyaaniga iyo wareeriyina oon isleeyahay waxaan u baahanahay inaynu ka feejinaano qaabkaynu isticmaalno dhammaan waxyaalahan videogana daawanaysa waxa weeyaan caruurta waqtiga nool qaabka ay u riyoodaan marka ay hurdaan maxay kula tahay caruurta waqtiga nool haddii ay sidan u riyoonayaan caruurta dhalan doontina qaab nooceeya ay u riyoon doonaan waa sababta experimentiga uu sheegayo qofka bini'aadankii markuu 5 uu dhaafo in wax curintiisu ay hoosayso maadaama maskaxdiisa loo program gareynayo in maskaxdiisu aysan wax curinba in wax walbaaba uu telefonkiisa ugu jiro in wax walbaaba uu TV ka raadin karay wax walbaaba sida uu fikiray qaabka go'aanada qaadan ay yihiin waxyaalo mar hore lagu soo maskaxdiisa qofkuna uu arkayo waxa indhihiisu ay arkayaan inay run yihiin balse aysan run ahayn oo yihiin xaqiiq iyo mal awaal waqtigu waa shayga ugu muhiimsan noloshaada beenta ugu weyn 2020 ilaa 2023 leeniga dhaadhiciyay waxa weeyaan inuu yahay waqtigu shayga ugu muhiimsan nolosheena been ma ahan oo malihi waqtigu ma ahan shayga ugu muhiimsan waa run balse laakiin ma aan ku ugu muhiimsan nolosheena shayga ugu muhiimsan ee laga maarmaanka inaynu ogaan waxa weeyaan shayga la yiraahdo tamar haddii aad haysato waqtiga adduunka ugu badan balse aadan haynin energy ama tamar waqtiga aad haysata waxba sheegi maayo qofka bini'aadankii waa sida mobilka oo kale aroor walba uu soo tooso wuxuu la soo toosaa 5 ilig oo u buuxa maalin walba wuxuu la soo toosaa boorsadiisa oo buuxda oo tamar ama energy qof walbaaba tamartiisa u badan ama energy-giisa u badan wuxuu u bixiyaa aroortii ilaa laga gaaray 12 wuxuu tamar lumiyaa 2 ilig waxa u soo hadha 12 markuu gaaro 3 ilig oo kaliya marka ay gaadho 3 galabnimo waxa ka baxda 1 ilig oo kale waxa u soo hadha 2 ilig oo kaliya ilaa laga gaarayo 6 maqribnimona wuxuu isticmaalaa 1 ilig 6 wixii ka dambeeya hadaba maxaynu sameynaa 6 wixii ka dambeeya waxaan waqtigeena ugu fiican ama ugu muhiimsan waxa sugaya oo u baahan caruurteeni familigeeni nafteeni waqtigan waxa laga yimaadaa iskoolka shaqada waxbarashada iyo suuq bixistii oo dhammaan waxaynu u wada hoyanaa guryaha aynu ka nimadnay waqtigaasna waa waqtiga ugu muhiimsan ee isleeyahay qofka bini'aadankii wuxuu u baahan yahay waqtigan inuu ku lumiyo waxyaalo ugu muhiimsan haddii ay tahay naf haddii ay tahay cibaado haddii ay tahay nasasho haddii ay tahay waalid haddii ay tahay caruurba haddaba marka la gaadho 6 adi maxaa kuu soo haray kaliya waxa kuu soo haray 1 ilig oo kaliya haddii qof xataa badankeena haddii qof su'aal inuu weydiiyo su'aasha ma awoodi karano kamana jawaabi karano waayo tamartii ayaa inaga dhimaatay kaba soo qad waxa inoo haray 8 saacadood oo kale ama 6 saacadood oo kale haddaba miyay kula tahay 6 saacadood inaad u isticmaali karisid saad u isticmaashay aroortii
waa maya. Taleefankaaga markay hal ili ku saadho maxaad isku daydaa inaad taleefankaaga ilaashato inaadan isticmaalin. Way waxaad ogtahay halka iliga dad isticmaasho inuu taleefankaagu ka damayo maskaxdaaduna waa saas oo kale ma rabto inay danto. Waxay doonaysaa inay survive garayso, inay la tacaasho, inay rafaado, inay halka iliga ilaashato. waqtigaasna gelin mayso ama tamartaa gelin mayso hadday tahay caruur, hadday tahay xaaji, hadday tahay xaas. waqtigaaga ugu fara badnaa waxaad ku soo lumisay adduunyo kale, hadday tahay shaqo, hadday tahay banaan bixis, hadday tahay waxbarasho. marka aad soo daashana maskaxaadu waxay isku dayaysaa inay hesho istareex. waxay ku odhan samee waxa ugu fudud. haddii ay tahay TV hoos fadhiiso, hadday tahay radio hoos fadhiiso, haddii ay tahay taleefankaaga inaad isticmaasho oo TikTok scroll galayso iyo waxyaalo lamid oo kale. ugu dambaystii waxaan ku leeyahay waxay tahay qofna ha ka qaadanin fikirka uu ku soo bandhigayo. adigu noqo qofka raadsada wax uu run u arko. adigu noqo qofka raadiya indhihiisu ay furan yihiin, maskaxdiisa programmii isaga laftarkiisu. ma aragta dhalinyar fara badan oo jaamacada ka soo qalin jabiyay ka calaacalay inay shaqo la'aan hayso. qofkaas soddon jirka ee ka calaacalay shaqo la'aan inay hayso balwad bartay iyo soddon jirka hormuud maamula. maxay tahay farqiga u dhaxeeya? waa tan qofku qaabka uu u program gareeyo. haddaba video waxaa jiray aan aniga laftarkaygu kaga sheekeynay caqliyadda faqri. haddii aad xiisaynaysid caqliyadda faqri oo qofku iskaga ilaalin karo caqliyadda faqri, videogii aan ka sameeyey halkan ayaan kusoo dhigi doonaa. adigu noqo qofka maskaxdiisa ku shuba waxa uu arko inay run tahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.